gabadhu waxaan ahayn bay u sheegtay waa maasan tahay madaxweynaha dowladda Puntland golaha baarlamaanka wasiirada culimada gudoomiyaha gobolka iyo qurba joogta dibadda ka timi iyo dal joogtaba dhamaantii salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh run ahaantii maanta waa maalin taariikhi ah cimaad ama golis group oo soo bandhigta awoodeedii ama awoodaheedu ugu waaweynaa maanta runtiina wax lagu faani kara maanta meesha keentay waa bogaadinaynaa waana mahadinaynaa ilaahay baa mahad iska leh iyagana waa u mahad celinaynaa runtii waxay maanta inoo soo bandhigeen wax Soomaali oo dhan ku filan magac ahaan iyo maamus ahaanba Puntlandna maanta waxaan dhihi karnaa runtii waxay u tahay sharaf weyn shirkadda intaan oo awoodda inta la soo bandhigtay dhaqaalaha inta la bixinaysa oo runtii ku aamintay dadkeeda iyo dalkeedaba inay hanti inta lagu dangeliso runtii farxad bay inoo tahay waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed soo dhawaada ku soo dhawaada caasimadda Puntland ku soo dhawaada bilicda iyo runtii amniga Puntland oo dhan gaar ahaan caasimadda dowladda Puntland waa mahadinayna runtii qof kasta oo tala ka geysta horumarka dadka iyo dalkaba waana bogaadinayna runtii maanta Puntland waa meesha kaliya maanta lagu faani karo amni ahaan iyo horusocod ba runtii kelmadda ugu muhiimsan madaxweynaha yeelan doona insha Allah anagu waxaan leenahay soo dhaweyn iyo marxabayn inaan soo dhaweyno dadkiina iyo dalkiina idin ku soo dhaweyno caasimadda ku soo dhawaataan magaaladan waxa loo yaqaan Garowe kelmadda waxa loo dhihi jiray waa waaga hore geedka la yiraahdo Garowe ama Qurca baa loo magacaabi jiray laakiin maanta Garowe waxa soo bedel doontaa geedka timirta hadii la hayno magaalada timirta lagu magacaabi doona waa mahadinaya cimaad oo timirtii magaalada iyaduna ku dayatay oo dhinaceeda ka soo gashay waxaan magaalada tina noqoto magaalada timirta soo wada ekaato hadii la hayno haddana waxaan noo diyaarsan 1500 oo geed oo magaalada dib loo gelin doono hadii la hayno waxaan rajayn doonaa wadada weyn oo Garowe soo gasha oo hadda aad aragteen labadeeda dhinac timirta la qaadsiiyay in magaalada la isku xiri doono hadii la hayno waxaan rabnaa Soomaalidu waxay tiraahdaa hadii waxa lagu wada tashado oo la isku raaco waa la gaaraa geedka timirta waxa laga yaabaa waxa la dhihi jiray waxaan xusuustaa reer hadda ka hor aan u tagno waxay u dhaheen geedka timirta naga saara ma rabnee micnuhu waxa weeye micnihiisa ayaan aqoon hadda qof walba wuxuu leeyahay yaa timir haya magaalada waa la doonayaa waxaad garanaysaa marka hadii waxa waqti la geliyo oo lagu faano oo la ilaaliyo in laga miro dhaliyo marka waxaan rabnaa magaalada tan inay noqoto runtii magaalo dadka oo dhan kulmisa Soomaali oo dhan waa deeqdaa waana ka badan tahay caasimaddu وعاصمة بوتلاند وعاصمة الصوماليات قف كستا يوم ميلو البو تشوغان وفرن تاي وحان لنا يكون سو دوادا قعمة فرن قف كي دول دونية يو قف كي قولي دونية يو قف كي تلا دونية انت با ان شاء الله ديار بانونا انا كو سو دوينو محايا لي انت سانو انو ميشو تشوغنا انا تلسينو اذن قرب قبنو عمادنا وحان لا يدنكونا ومهسنتهين بلعدا وناكسنو يو قروح دا يشرفت بوتلاند ودن iyadoo ay wada amni tahay inaad Garowe u soo lixiseen idinkana waan ku amaanaya waxaan leeyahay Garowe ku soo dhawaada anaguna waxaan diyaar idinahay inaanu idin garab istaagno taliya tusaale aad oo mahadsantihiin khayr baad idin jeenay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh